munaasabad lagu xusaayay sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay alla naxariistii jannaha ka waraabiye geeridii madaxweynihii labaad ee Soomaaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo geeriyooday 3 May 2002 oo doorkani loo bedelay xuska geeridiisa dood lagu lafagurayo hogaamintii himiladii hankii siyaasadeed ee marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal doodaasi oo ka dhacday hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano mas'uuliyiin ka tirsan xisbiya qaranka aqoon-yahan mudan marti sharaf tiro badan iyo fanaaniin waxaana doodaasi marti ku ahaa siyaasi Cali Waran Cadde Professor Cali Khaliif Kalayd gudoomiye Cabdiqaadir Jirde Professor Bulxan iyo Ambassador Aadan Muuse Jibriil waxaanay dhammaantood ka sheekeeyeen taariikhdii maguurtada ahayd ee uu ka tagay iyo raadadkii mucjisooyinka iyo maguuraanka ku noqday siyaasadda Soomaalida ee uu ka tagay iyo hogaamintiisii waqti adag waa ku soo beegmay dagaal sokeeyaa dhulkan jiray haddana sida uu ugu mintiday runtii dhaqanka hore iyo mujtamacan aynu nahay oo mujtamac qabali ah sida uu labada isugu dhafi karo oo haddana dastuur the ultimate waxa ugu weyn ee wadan iyo ummad ay isku xukunto dowrku ka qaatay axsaabtaasi waxay noqonaysaa axsaab ujeeda badana oo mid baa qabiil soo galaya mid ma mabaadi kale u galaya waxa soo dhan inta la isu keeno oo fikir midaysan loo yeelo oo la jiheeyo oo lagu jiheeyo isticmaalkii wax aad u adag bay ahayd waana lagu guuleystay keligii mu ayna rag badan oo la mid ah oo la shaqaynayay ayaa jiray laakiin isaga iska soo dhex saareen iyaga u gartay inuu noqdo hogaamiyihii xisbiga horta Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ilaahu naxariistee guushiisa ama kartidiisa waxa inta badan aad ku soo koobay saddex xadaaradood waa qaarkii way taqaadugtiine ayaa aynu dabaalanayna mid waa tii Soomaaliga ahayd ee dhaqankeena ahayd midna waa tii Carabiga iyo Islaamka ku xidhnayd midna waa tii Qarbiga saddexdaba qof hagaag u fahamsan buu marwa kaltoon hore mahmaaba jirtay la yiraahdo nin kastoo adag waxa ku lamaanan marwa adag wuxuu noloshiisa horta runtii ku dhamaystay halgan siyaasadeed oo uu doonayay inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qabto oo uu gaadhay isaga iyo asxaabtiisii farakutiriska ahayd inaynu noqonno isticmaalkii Afrika qaybsaday ama gumaystay dawladda shanaad ama lixaad intii la gumaystay ee Afrika xornimada qaadata inuu noqday dhalinyaradii ku guulaysatay inuu ka dhaliyo maxmiyadda Ingiriiska inaynu waqti hore oo Afrika ay hurudo inaynu qaadanno xornimadeennii 26 Juun 1960 gabagabadii marwada madaxweyne Cigaal Marwa Kaltuun Xaaji Daahir oo aan wax ka weydiinay shucuurta iyo dareenka ay ka qabto qabsoomidda xuska geerida marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye iyo ujeedka ay doorkani uga dhigeen dooda lagu lafagurayo taariikhdiisa ayaa tiri aan ku faraxsanahay odayaasha inoo yimid dhalinyarada inoo timid doorkan waxaan xooga saarnay dhalinyarada jiilka cusub inaanu barno siyaasadii waxqabadkii hogaamintii dulqaadkii deeqsinimadii go'aan adaygii Maxamed Ibraahin Cigaal alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican inoo dhacay ninka ka faaloonaya waa siyaasigu uma baahna in la baro maanta Maxamed Ibraahin Cigaal dhalinyarada u baahan in la baro oo lagu fadhiistay siyaasadii Maxamed Ibraahin Cigaal iyo taariikhdiisii waxaan rabaa inaan soo faqnaano dadka barno doonaa si laga dhawaajinay ilaa laha maxaa curriculumka loogu soo dari waayay maxaa maalin la xuso loogu sameyn waayay sidii ayaan rabnaa inaan dadka barno siyaasadiisii soo faqno dastuurkii wax kasta Axmed Nuur Ciise Mohamed Bulsho TV Hargeysa